أنتو حا معنا ساد جديد ما ويدو وحنو معنا ماما إننا عاونو أو جوكتو ماما ويدو أولو سوديبا لعكن $10 ملالا خير كجعل وحنك عصنا فيديو جام مركب فيستا سمسكرات وينو صارن جنبالك وينو فدا مركز تسيتكو صار فيديو كله عدد أودين هتا وح وإن سي شير جراسا سيدن اللي شيء وإن دت كله سي شير جراسا سي لو أركو ولالا خير كجعل إن دت كسوعاوين أو تفردر راسو oo in wax loo dhiibo maanta waa jeclaanahay meesha aniga degnaa ee keenay degnaa la Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saawada arkaysaan maamada guriga aan u dhisaynay amaanta soo booqanay ma sha Allah channelka Bu'aale ma sha Allah garboyn uu ka qaatay aad iyo aad channel aad iyo aad weyn waa ma sha Allah taqabbal Allah ilaa khayr ha ka siiyo khayrka aan wadno ma sha Allah walaalayna saawada arkaysaan maamooyin joogan dalka Switzerland ayaa ugu soo talagaleen lacag $50 ah إن شاء الله تعالى واركي دونتين كاشهانا وضنا مكان ماشي أدنو مامدا أدنو دون أجين غفلهانا وعيدونا إن شاء الله ولكن النور وكنا غير الله سياسيا. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد سلامني داود يال ميلو البدجوكتان وحنا قدامنا سان لوا جنال وحاول بؤال ميديا أيوه باحميش أبو بكر باحميش أوكي وحاول in badan waa aragteen maxaa la dhihi jiray fanaan la soo duubay waa aragteen maxaa la dhihi jiray dad badan oo isku keenay waa aragteen anagoo xig laakiin maanta sheekada tii hore way ka duwan tahay dhalinyartan hadda horta social media hadda ugu horeyso muuqaalo badan oo hore soo duubeena jirto oo dad ayagu caawinayaan caawinta hadda ugu horeyso meeshan oo arki doontiin waxa waaye meesha hadda aan joognana ma ahan meesha meel magaalada meel ka baxsan waaye duleedka magaalada Muqdisho aan joognaa marka horta khayrka mar walba Soomaalidu way khayr jeceshahay maxaa la dhihi jiray waxa la rabaa maanta waxa meeshan u imaanay maamo oo la sheegay inay xanuunsan tahay aan weli ma la kulmin xanuunsano maamada macalla wiilkeeda ka waashay ilmaha haysa ilmaha agoomada hooyadooda dhimatay guriga anaga u dhisnay buusho 7 carruur marka waxa waaye dadkan cala kulli xal waa samafalayaal inta badan wadanka dadka jooga waxay u soo dhiibtaan lacagii waxay sameeyaan marka ay guddoonsiyaan dadka danyarta ah fiila maamooyin joogaan oo dhisan lacagta anaga noo soo marsiin anaga u dhisnay buusho ah marka waxba waxa lagu gaaraa waxa waa jaranjarta hoose ka bilaawata maamada maanta meel oo ay ku hoyato macnaha lama dhihi karo guri oo maanta dabaqa ma ahan villa ma ahan laakiin meel oo dad aragti afar biyaan uu iga fiican yahay ku dheeyay buusho ku jirto marka waxaan leenahay Soomaali weynay khayrka noo sheergareeya mideeda kale sida gaar ahaan dadkan uu soo raacay ama aan rabo inaan ka caawiyo waxay tahay channel ayaga ay leeyina jirto oo hadda nilii sheegay channelka hadhow waxaan soo dhigi doonaa qaybta linkiga waa dad khayrka jecel inay faafiyaan jecel macnaha inay caawiyaan dadka danyarta ah marka waxa way dad Soomaalida kamid oo khayrka jecel inay ka soo qayb galaan khayrka jecel inay ka soo qayb galaan way jiraan marka dadka khayrka jecel ama jecel wanaaga waxaan idin dhilahay channelka subscribe hala saaro qaybta waxa idin soo dhigaa linkiga qaybta commentiga linkiga idin soo dhigi doona insha Allah maxaa la jiray de khayrka loo kaco oo hala caawiyo dadka dhibaataysan meesha maanta ay joogno xitaa kaamirada in qaybo kamid ah idin ku soo qaban doona wallahi anaga meesha anaga aan deganahay qof walba maanta uu jecel inuu dago maanta nolosha quruxda badan anaga aan ku jirno qof walba uu jecel laakiin danta macnaha biday ina meesha la dago maxaa la jiray meel maanta oo fog magaalada ka fog ina imaano laakiin dib ma lahan qofba waqtigiisa waa alxamdulillah ilaahay waa tusi doona maalin maanta inay ka sii fiicnaan doonaan marka lacagahaas yar oo ninkan hadda idin tusay aan wadnaa aan rabnaa in maamada maxaa la jiray guddoonsiino dadkii lacagaha soo baxsadan de waxa waaye si gooni ahaan anaga ka channel ahaan waa ugu hambalyeynayna waa ugu mahadcelinayna waxa leenahay keep going macnaha maxaa la jiray dadka kale oo macnaha khayrka jecelna Soomaalidu way khayr jecesha waa ogahay marka channelka si faafiya macnaha hatta hadii wax kale asameyn karin aad tabartaada in wax bixisid xitaa video share garay si dad badan u arkaan video share garay asxaabta la wadaag dadka youtuberada wax ka codsanaya ama page-ka waaweyn leh in channelada sidaan oo kala dadaalo rabo inay macnaha caawiyaan dadka Soomaaliyeed oo liito maxaa la jiray inay macnaha maxaa la jiray u share garayaan macnaha xaasnimo fiicno wallahi shaqaday hayaan waa shaqo adag meelahan la soo maray iyo dhibaatooyinka bajaajyada aan ku soo baxnay halaha bacaad aan soo galnay bajaajyada aan soo rixnay lama waxa macnaha la qiyaasi kar ma marka video haduu ku soo gaaro aan ku daawanaysa caafimaad please waxa ka codsanina si share garay waa aragtiin Maxamed Yare waa kana maanta dadkan astaanta ay wataan maanta ugu horeyso waxa astaamahan hore waa arki jiray
laakiin channelka ma ahan channel oo maanta bulshooyin dhan ay macnaha dad basaas si badan ay ku xiran yihiin insha Allah aan inta ka caawin karo inta soo bandhigi karo oo soo bandhiga videogan caaw labada channel buu soo gali doonaa channelka Boal Media please haddii videoga aad daawanaysid qaybta linkiga commentiga ka baar ama qaybta communityga ka fiiri videogan kale oo channelkan insha Allah waxaad rajeenayaa khayr badan haddana waxaan sii aadinaa maamada sidaas iyo nabad hay okay maxamed yare ma sha Allah hadalka kor u qaad maxamed yare waxaa imaanay walaalaha khayrka jecelaya maanta la socdaa waxaan imaanay ma joogto weedo ayaan caawinaynay waxaan ku deeqaynay lacag $50 ah oo maamo soo dhiibtay maamo soo dhiibeen maamiyaasha Switzerland la caawiyo Switzerland okay intu maxamed cod ma laha sababta meeg intu naga jira maxamed inta soo marsiinina hay su'aaliye asxaabta maanta waxaa imaanay saad ujeedin maanta weedo waxaan u imaanay maamo inaan caawino oo joogto maamo weedo oo loo soo dhiibay lacag $50 ah walaalaha khayrka jecel waxaan ka codsanayaa videogan markay fiista subscribe waa inuu saaran gambaleelkan waa inuu fuda markasta si ku soo dhaco video kale hadaad awoodin hataa wax waa inaad sii share gareysaa sida nila sheegay waa inaad dadka kale ku sii share gareysaa si loo arko walaalaha khayrka jecel inay dadka soo caawiyaan oo tabardaradaas oo in wax loo dhiibo maanta waa jeclaanahay meesha aniga degnaay ee keenay degnaa kasto maanta haddana waxaan tegaynaa maamo sax waa maamadii haddu si tagana mideed kale midaan rabaa inaan si raaciyo dada waxay dhahayaan sadaqada lama soo bandhigo maxaa la jiray laakiin waxay noqon kartaa markii maanta la muujiyo maamadii sadaqadii la siiyay ama maxaa la jiray kaalmadii la siiyay maanta marka la soo muujinay bulshada degneed alxamdulillah dad walaalo u dhiseen oo muxsiniin ah oo jooga dalka Finland oo maama fardoon ay kamid tahay Soomaalidu dadka marka la tuso baraarujinay noqonaysaa insha Allah inaan dada caawinaya wax siinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خيرك جعل مل والبان قد ونيسا ما أنت جنالك نلجوجو وجنالك من بوال ميديا أيام ما نلجوجو يا محمد جرا جنال سا وذاركيسان إن شاء الله وحنهدا وصعنا مع مديسي أو كديسان وصعنا نلصعد ولا لي على ديكم حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka daawadayaal saaidin sheegnay markii hore ina maamadii macnaha maxaa la jiray lacagtii lahayd oo macnaha lacagtii oo u jeedin inaan gudoonsiino iyo gurigii maamada macnaha loo dhisana aragtiin horta guriga hadda aan dhex taaganahay waa alxamdulillah waa guri masaani u maleynaa ka duwan sababtoo aan kaamamka inta badan markii hore waa garanay macnaha guri qurux badan maamada loo dhismo faanteen bacweyn ah meesha aan dhex taaganahay waa meel macnaha maxaa la jiray qurux badan maamadii macnaha lacagtii la gudoonsiin lahayn waatana maamada kale oo ag taagan waa maamada dhulka macnaha markaas ku soo dhaweysay oo dib u dejin u sameysay marka ayadana aad aan ku mahadcelinayna lacagtii waa u jeedin marka hadda waxa si toos ah lacagta ugu wareejin doonaa maamada lacagta lahayd $250 waa insha Allah ta'ala $50 sawada arkaysaan walaalaha khayrka jacayl maamooyin joogan dalka Switzerland oo soo talgalin lacag dhan $50 waa maamada buushka degneed loo dhisay ilaa khayr hasay maamo fartuun maxamed maxamuud oo joogta dalka Finland dadku dhiseen ay kamid tahay maamada markii kalibiyadeeda la arkay insha Allah ta'ala waa kan hadan oo ku reedin doonaa ilaahay haduu raalo ka noqdo maamadaana khayr Allah si ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin waa maamada iyadoo buush laga soo buriyay u dhistay oo dhulkan siisay wax baraka leh Allah u dhiibo qayr badan gurigii waa la ii dhisay hooygii waa la ii dhisay maacuntii cuntadii waa la ii keenay qayr badan Allah siiyo haddana lacagtaana la ii keenay iyadoo talaada qayr badan Allah siiyo wax baraka leh Allah u dhiibo adduun iyo aakhiraba insha Allah ta'ala maamadan waa maamadii u dhistay oo guriga dhulka siisay iyadoo kaam laga soo buriyay iyadana ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin Allah ka siiyo aamiin walaalayaal waa mahadsantihiin جزاكم الله خير إلهي أقرأ الدون بهين كوش شفاعه maamadan waa u dadaasheen guriyaad u dhisteen hadda roobka markuu da'ayo kala weyne xijirtay buushkaas yarkaaha u dhisnay haddana maanta gurigaas u dhisan ilaahay khayr badan ha inii sii aqri adduun ba Allah in kugu shafeeco إن شاء الله تعالى وكان عبد الغني والالك معنا صير ما شاء الله وقتي خالقة نسي ما شاء الله كامردي وقتي قد كان نسيان إجنا جودي بدن نوصل بعيان إلى إجنا أجر يا حسنات على سوكوبي كريم بقى ساود أنت إن شاء الله أنت كوعنا أنت كلام وعلينا إن شاء الله جرء الجوج. السلام عليكم
warahmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan joognaa weedo sidaad wada jeediin mana ka maqna maanta channelka Bu'aale Media oo garabna siiyay oo maanta soo raacay si sharaf leh asagana ajri xasanaad aan soo koobi karin Allah ka siiyo in al intii wax soo baxsatana ayagana kulli ma sha Allah oo soo wakiishatay Maam Fartuun Maxamed Maxamuud ma fiilan joogto Switzerland joogto aad u mahadsanyihiin walaalkeen Abuukar Baaxmish asagana dadaal badan oo ay ajri xasanaad aan soo koobi karin Allah ka siiyo cameraman-keena Anas Xasan Abuukar Dooyon asagana ma sha Allah waa nin aad wanaagsan waqti walba noo soo hura ما شاء الله وجودين مامada guriga loo dhisay maxamed yarana janaal waana la socdaa ma sha Allah asagana waa kan YouTube asxaabta aan il sheegay maamada waa kan waa loo keenay lacagta سيد وجدين لعقت كنتن دولار ايد والله كاني وحنو كاني بحميش وعدد لو سو غرمده واني الشيغ فيديو غادي شي شير جريسين دد ودد كسي دنبه ايا اركي دونو waxaan leeyahay asxaabta markasto waxa khayrka waa in la sii share gareeya YouTube kan waa in subscribe loo saaraa walaalkayga Baxmiish ku soo dhaw insha Allah ta'ala oo karna kama maqno walaalkay ma waqti badan uu si juhdi badan ma sha Allah labada bajaajigana غير Allah siiyo wanaag badan ay ka qabsadeen insha Allah ma sha Allah ala inta u soo niyeysatay oo soo dirtay ala غير Allah siiyo dhamaantooda insha Allah asxaabta reer Bu'aale waxaan leeyahay insha Allah ta'ala haluu soo yaaco samafalaha weyn insha Allah غير Allah niisiyo dhamaan insha Allah insha Allah ta'ala meesha joogno saa hore idin kugu sheegay asxaabta waa u jeedin dadkan wallahi juudigu ay bixinayaan ma ahan mid ay faa'iido ku raadinayaan wallahi oo tidin anaga iska dhiiboon sababtoo ah juudiga ayaga soo maamada gacanta laga saaray maxaa la dhihi jiray wax walba ayaga maanta korkooda ay yihiin idinka maxay idinkaga baahan yihiin marka waxay idinkaga baahan yihiin videogan markuu idin soo gaaro please share gareeya channelkaana please kala kiciya baasha insha Allah channelkan si dad ay ugu xirnaadaan ma ahan isaga faa'iido kala gooni u raadinaya ma jirto laakiin si dad ay ugu xirnaadaan oo dadkii ay khayrka jeclaa oo rabo inay macnaha maxaa la dhihi jiray ay ka qayb qaataan dadka wadankii ku dhibaataysan waa aragtay waddanka waan la tusin doonaa dad ugu feesanaa jira boosha marka inta ka bixin waxa waa idin duubi doonaa insha Allah kor ahaan idinkaga duubi doonaa meesha waxa meel iska qaxooti oo dhib badan waay dadkii soo waxa wadankii markii yani barakac iyo waxaas la iskaga jira wali ma fahamtay wadanka settle maahan marka dawladdan ma ku macnaha ma wada awoodo maanta inay Soomaaliya dhan ay ka wada kaafisan fahanteen marka dad waxa jira walaalaha wadanka banaankiis ku maqan jecel inay khayr ka qayb qaataan marka dadkii soo bandhigi lahaa waa kuwana waxa way ayaga u kaceen rabaan inay soo bandhigaan astaan gooniye sameysteen oo u jeedin marka annaga maxay noogu baahan waxay noogu baahan inaan garab qabanno jannaladii aan u share gareeno aan bulshada u soo bandhigin khayrka ayaga ay wadaan marka waxay rajeenayaa khayr badan video wixii inta ku kulmeen waxay rajeenaynaa annagoo isku duuban channelka magaciisa Baxmiish Maxamed Yare channel iyo Bu'aale Media annagoo isku duuban okay sorry iyo Mansamaalo official marka waxay rajeenaynaa waa channel wada YouTuber waay annaga faa'iido waa idin ku celinaa wali faa'iido gooni wal raadinaa ma jirto laakiin dadka walaalaha waxa loo qabto waa walaalaha asbaabta keentay mar walba inaan wax soo bandhignana cadeyn qofka mar laftirkiisa qofka markii wax soo baxsado uu arko farxadda ka muuqato qofkii wixii loo keenay farxadda ka muuqato markuu arko wallahi waxa way isaga farxad kale u sii tahay marka aniga sababta aan soo muujineen mar walba waxay tahay in macnaha qofka khayr doonkan uu sii arko qofkii wax soo baxsadan uu arko farxadda qofkan wax loo keenay marka waxay rajeenaynaa khayr badan anagoo isku duuban sidaas iyo nabad